nacashka maalinta lagu saaro wuxuu ku leewsiin doonaa faraskaagii iyo gaadhigii laanguruusarkii iyo sariirihii qaaliga ahaa aad ku raaxaysanaysay baad ku iloobi doontaa yowma alqiyaamati laa maalun walaa waladun maalinta qiyaamahana kii maal badan lahaa maalkiisu anfici maayo kii qabiil laandheeraha ka dhashay qabiilkiisu anfici maayo kii awlaad badan lahaa awlaaddiisu anfici mayso wadammatu lqabri tunsi leylata alcursi mar allii marka qofka qabriga la dhiga buu rasuulku noo sheegay xadiis kale qabrigu sidaa buu iskugu yimaadaa deedna feedhaha qofka ayaa sidaa isku dhaafa haddii qabriga isku yimaadkiisa nin ka badbaadi lahaa buu nebigu yidhi sacad binu mucaad baa ka badbaadi lahaa buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam atadruuna man huwa sacad waa ninkii geeridiisa maalintuu adduunyada ka intiqaalay carshiga raxmaanku u gariiray faraxan liquduumihi imaadku adduunyada ka tegey bixidda sacad uu maalintii adduunyada uu ka baxay ayaa ilaahay jalla wacalaa carshigiisa raxmaanka u dhaqaaqay farxad daraaddeed jibriil baa soo dhaadhaco nebiga u sheegay oo yidhi nin asxaabtaada ka mid ah ayaa go'ay oo ahlu samuhuna ay ku bishaaraysanayaan imaadku adduunyadii ka yimiday markaa buu nebigu sara kuxuu yidhi yaa jibriil sacad binu mucaad baan u malayn buu yidhi inuu go'ay deedna uu soo degdegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa saxaabada rasuulka kabihii ay galsanayn ay ka go'een markaasay nebiga soo gaadheen markaasay idhaha yaa rasuul allah socodka waa nagu daalisee markaa buu nebigu yidhi haa waa nigu daaliyey sidii xandalo malaa'igtu ay ugu maydhay inay sacadna hortay u maydho ayaa ka cabsoonayo inaan sacad gacantayda ku maydhan u soo degdegayay buu rasuulku waxauna jibriil ii sheegay buu yidhi carshiga raxmaanku faraxan isagoo ku faraxsan imaadka sacadu adduunyadii ka yimiday inuu carshiga raxmaanku u gariiray ayuu jibriil ii sheegay buu rasuulku yidhi markii janaasadii la soo saaray la qaaday bay munaafiqiintu yidhahdeen maydkan fududa markaasuu nebigu yidhi ha odhanina sidaa war ma haysaan idinkuye 70,000 oo malag ayaa maanta arlada u soo daadegay maanta ka horna malaa'igtaasi arlada maynan iman sacad binu mucaad janaasadiisa ka soo qayb galana weyniina sidaa buu rasuulku yidhi markii qabriga la dhigana nebigu wuxuu leeyahay qabriga isku imaadkiisa haddii shaksi ka badbaadi lahaa sacad binu mucaad baa ka badbaadi lahaa buu rasuulku yidhi wadammatu lqabri tunsi leylata alcursi habeenka u horraysay zafaafka waa habeen taariikhda ku qoran weeyaan habeenka u horraysay nin kastoo dhallinyara uu gabadhiisa zawjadiisa xalaasha uu la aqalgalay iskugu horreeyeen habeenkaa waa habeen taariikhiya weyn lama iloobo laakiin isku imaadka qabrigu isku imanaya marka u horraysa lagu dhigo habeenkaasaa lagu halmaamaa buuhi ninka shaacirku aaway shucuurta iyo dareenkaasi maanta وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين markuu qabuuraha dul yimaado ilmadu garhkiisa qoyn jirtay ilaa laabtiisa waxaa la yidhaha cusmaan jannada iyo naarta ayaa laga sheekeeyaa ma oydida qabriga markaad dul timaadda maxaa loo oydaa baa lagu yidhi waxa uu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhi qabrigu waa aqallada adduunyada ugu dambeeya weeyaan waana aqallada aakhira ugu horreeya halkaa ninka ku nabadgalana nabadgelyadii runta u dambaysa buu rasuulku yidhi halkaa ninka lagu cadaabana cadaabkii weynaa baa u dambeeya buu rasuulku yidhi cusmaan radia allaahu canhu waardaah waa saxaabigii jaliilka ahaa ee adduunyada ilaahay ku imtixaamay loo sheegay in la imtixaamayo welibana iska sabray beertii nebigu uu ku jiray buu albaabka loo garaacay nebiga abaa muusa alashcari baa iridda taagnaa markaasuu nebiga u sheegay yaa rasuul albaabka waxaa garaacaya abibakar markaa buu nebigu yidhi soo gal ka dhe abubakar jannana ugu bishaaree haddana abaa muusa halkii buu fadhiistay haddana waa la garaacay waayo waa cumar waa kuu soo idan qaadiya u kaadi yaa rasuulallah cumar baa albaabka jooga soo gal ka dhe jannana u bishaaree haddana waa la garaacay yaa rasuulallah waa cusmaan baa albaabka taagan u bishaaree janno balaayaa siibi doontana u bishaaree buu rasuulku yidhi markii loo sheegay layidhi nebigu jannana uu kugu bishaaraynayaa adduunyadana balaayo iyo masiiba kugu dhici doonta wuxuu ku jawaabay allahu lmustacaan aad safka hore ku wada tukataan ama mid meelaha iska barjeeyo qaraabadiinna hadduu 2 jeer ku yidhaahdo warniyo manaan baan kugu arkado baabur kula qallima ka warran waxaad odhan war adu noloshidaad ka xuntay idaa'i kaarqabaad hee soo ma waad ka raxabsan waa mid meelaha iska barjeeyo qaafila oo masaajidada iyo diintii ilaahay cilaaqa la lahayn hadduu 2 jeer riyo xun kuu sheegaad saa u nixo oo sidaa u qarqari oo ruuxbaba kuu dhacaya
محمد عليه الصلاة والسلام صادق المصدوق ما هو شيء إنه بلايا أدوية كوا أصيب دونته وعو بلايا هذا الله المستعان. وهذه فاطمة بنت محمد رضي الله عنها سيدة نساء هذه الأمة في الجنة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام والنبي قد أحفر ديو أي فاطمة النبي قد أصوغ شيء ويكفر إساتي ويدنكتي ودنكتي النبي عليه الصلاة والسلام إن انتسي مرقاسو كالي فاطمة يرمى كو شاقي لكتو وحو شاقي وعيد روان للما قد فاطمة عائشة أركيسة أم المؤمنين رضي الله عنها مرقاسو النبي يقول هذا نكالي فاطمة أرين كلام كو شاقي لكتو وحكا لو كو شاقي إسلام أركيبا فاطمة هذا هو يقص الشيء فرحة عائشة مالين دنبا ويردي وترى أرنتي مالين تادي أباها إني دحمرتي إن مرنا كويدي مرنا أتكفر حدا إيشك مرقا بيتر هو يكون شيء ما يصير تاس أنا جي النبي نقد حسوا كوما شيء يو ولكن عائشة ما يهالمامنة مرقي النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا وكي انتقالي أي مالين ويردي كتري ما دام النبي الدنيا كي انتقالي صرتي هذه النبي نقد حسوا ما عندنا شيء ويكون بناته إيشك مرقا سيتر هذا وأكون شيء يا أرنك صرت هو الرئيس كل المية وحي هاي وعويشك جريدي سويشك إني دودة هاي لأن وان هو يبيتي وأنت دوار كيسين صرت الله بعض ويشك كفر حي وحي كحيد ويقول يرها وي فاطمة يا أمس ميانا درالك وحين هواك أمة النبي محمد الجنة قلايا قبل وجود رجال الرئيس وكبر واقعا إني لا هاي كارك ميانا درالك حين رالي بانا هاي تري روايات كلنا وحنا نبي كويري هواينا أمس فاطمة أهل كيجا أفقد مشهد يقصوا حقوا هذيك أمس بيقولي لأنه ما فرح بيتري أفقد مشهد يصير الله شجع فرح عليك ورا ما ينتو ديار قرب يقف كاس هشام بن عبد الملك أيا أبو حازم يزيد الرقاشي وعلي سؤال ما كويدين يا شيخ ما لنا نكره الموت هدانا نقول بقراء النعي ما عندي مشهد وكرهنا بيقول دي مشهد وقع بصناعي زمن كاس وتابع تابعينتي وقرونتي هرويا مدحض أمبا نولش أدوية جعليده عامة المسلمين تأخرت إني تجاب جعلايين ما أنت الزمن كأننا هي فقير كأن بريجي سعاوة وحباء عن الأولين إنه آخرتك ديار مويه فقير حتى قوت اليوم عن هيسن أديل هذا آخرة ديار موتى ما يبغون إنتين هالكافر المساجد كجوكت هذه هالك حتى ملك وسوتها كملك وهذه دين أصيلة هاي رالي بينيجا نقضي الباب دي جنة نوال إني فري أيها وديار أي بكذا إنه قال أديل هذا كورم تحويلي أبو حازم بايدي واحد مشهد أوكر هيسان أنا أقول جوابي هاي الدوية النياد عمرتين واذكر حسين آخر دين وادسك خربتين واد باب إنسان بركة دارت أذكر حستين عمرتين إن أتكتكتان دار أنا وحبي نيجا سنين ونيجا بابا سن ونيجا الله وصل إن أدو قرتان ده أقولاني مسام بكوي قرمي آخرته جعلانا يا قرمي لكل إله جعلانا يا وأمرك دتك أعمالك الرئيس وأمرك السهي أي كه الرئيس أبو دربة ورجري صدع بان الدنيا وجعلها دتك ويكرها دمشقة هي فقرقة هي بقتانتا صدع على دتك وين بصداني يقولون جعلها يبويلي مع الله جعش هاي باللي وحنا جعلها فقرقة وتواضع بودي تواضع باللقاها لا فقرقة حنونك وحنا لا جعلها ودم داف كلما قفك مؤمن وحنا صدب الدم باللقا دافا دمشقة وحنا لا جعلها ما تقرن سابويلي ما ينوشك لا كلك ربك يبان جعلها لا أنا تذكاسي وحبين قدمتني يكو قال انتو دمنا يا أبو ذر إلا عدو كليك كل انتي ماشي الربد اللي دا حاسك يسيبه ويادي سوى سكرات ويكدل ويدي مرقاسو كلنا محل ويسا مرقاسو يكتري كاما مارمي كرو كما مايلي كرو
kuma aasi karo mara kafan kuu noqotona kuma hayo markaasuu ku yidhi dhegayso halkaa u bax tuurkaa u bax tuurkaa u bax buu ka yidhi safar jamaaca mu'miniina soo mari doontee kuwaaba aniga i aasi doonee iigu yeedh buu ka yidhi markaasay ku tidhi xaggee dad aan ka arkaa bay tidhi xaggee dad ka soo maraan xilligan jidka xajigii xajka ka noqonayna uu go'ay haddee toole oo xajkiina mar horaa laga noqdee dadka dariiqa soo marayaad sheegaysa waa dadkee bay ku tidhi nayaa i dhegaysa buu yidhi koox anigu aan ka mid ahay annagoo maskiidka dhex fadhin oo xalaqad fadhina ayuu nebigu nagu soo baxo wuxuu yidhi mid baa iniga mida ininka keligii cidlo ku dhimani doonaa keligii buu cidlo ku dhimani doonaa aaskiisana jamaaca muslimiin oo mu'miniina ayaa ka qayb geli doonta raggii maalinta aan la fadhiyey nin kasta uu dhintay nin magaaluu ku dhintay nin tuuluu ku dhintay nin reerkiisiibuu ku dhintay ninka cidlada ku dhimanaya nebigu sheegay ee jamaacadda mu'miniintu aaskiisa ka qayb geli doonto waa anige ordoo tuurka u baxo jamaacaddii nebigu sheegay baa soo mari doonta igu yeedh buu ka yidhi bal sida hadalka nebiga u rumaysanayeen dadkaas muslimiinta maanta adduunyada joogta iyo muslimiinta qarniga caalamka joogtay farqiga inoo dhexeeya waa yaqiin khabarka nebi maxamed ay ka maqleen ayay boqolkii boqol iyo ku rumaysnaayeen boqolkii boqol ninkii nebigu uu sheegay buu yidhi waa aniga ee cidlada ku dhimanaya raggii kaloo dhan way wada dhinteen tuulo iyo magaalo iyo qaryad iyo reerkoogay ku dhinteen ninka cidlada ku dhimanaya waa anige jamaacaddu nebigu sheegayba aaskayga ka qayb geli doontee halkaa u baxoo joogsa buu yidhi jamaacaddii baad arki doontaaye isaguna sankaraadkii baa haya tuurtaaba buur bay fuushaa xaggaa iyo xaggaa wax kala socday eegtaa haddana way soo noqotaa maradeeda intay qoysay madaxa u saartaa haddana way ku noqotaa siday u noqnoqonaysay bay aragta jamaacad muslimiin oo dariiqa maraya maradeedii bay markaa sidaa u tidhi baa la dhihi markaa bay soo leexdeen haweenay bay arkeen buurta dul taagan maxaa cidlada ku dhigay waxay tidhi saaxiba rasuulillaahi sal allahu alayh wasalam nin nebi maxamed saaxiibkiiya ayaa cidladaa ku dhimanaya kaalayo ila aasa bay ku tidhi markaasay idhahdeen oo waayo waxay idhahdeen waxay tidhi waa abu dar alghifaariyi radia allahu canhu abu dar baa cidlo ku dhimanaye kaalayo ila aasa markaasay soo yaaceenay yidhahdeen nufdiihi biaabaa'ina wa ummahaatina hooyooyinka iyo aabbahaya ayaa ku furanaynaaye masaaxiba rasuulillahi baa cidlo ku dhimanaya markaasay abu dar oo sakaraada ugu yimaadeen markay dhulka ka soo qaadeen ee dhabta ay ku qabteen uu indhaha kala qaaday horta wuxuu ku yidhi bishaaraysta mu'miniin baa tiinoo nebiga inuu sii sheegay buu yidhi xadiiskii nebigu markiiba u bishaareeyey ta kalena wuxuu yidhi dhegaysta laba qof oo muslimiina walaalkood ma dhinto hadday u sabraan oo aynan u ooyin oo ixtisaabna ilaahay ajar ka dalbaan oy u sabraan addoonkaasi naar ma arkee waa niga dhimanayaa maantuu cidlaa ku dhimanaya nebigaa ii sheegee hay ooyine iska sabro buu ku yidhi arrinka saddexaad nii sheeg waxa weeyaan mara kafan igu filan haddaan haysto iyadaa kafan layga dhigi lahaa laakiin ma haysto xaaskayguna mara kafan igu filan hadday haysana maradaabaa kafan layga dhigi lahaa iyaduna ma haysatee idhegaysta walaalahayo raggiina meeshaa maraya dowladda islaamka nin u soo shaqeeya hadduu inigu jiro dharka uu sitaa aniga kafan ha iga dhigina buuhi kafan ugama barin dharkaas muxuu dhowrayaa xaaraantuu ka dhowrayaa jirhkiisa inay taabato diin buu wataa taqwad buu wataa iimaan buu wataa zaad buu wataa zaadkaa uu aakhiro la tegaayo inuu ka borooba ayuu diidan yahay innagana zamankan halkaan marayna oo waxaan ku cuninba waa la cunaa ilaa wax walba cuntay soomaaliya gaajada unbaa xaaraana bay ku odhanaya gaajada unbaa xaaraana kullu jismin nabata fi lxaraami fannaaru awlaa bihi jidh kastoo xaaraan ku kora buu nebigu yidhi naartaa u xaq loo cuni doonta buu rasuulku yidhi xaaraantu iska daa adiga ilaa oo shahwadaaday taaiirisaa shahwadaada way saamayn umadkaaga xaaraanta taqwaduna awlaadday iska soo baxdaa waracu awlaad buu ka soo baxaa lidaalika nin boqora quruntii hore ah ayaa qasrigiisa soo galay isagoo walwalsan xaaskiisii baa ku tiri maxaa ku helay boqor muslima buu ahaa mujaahid ah dowladihii ka dhisnaa bay ahayd bilaad alhindi wasind markaasuu yidhi inankeenii aan ciidanka u dhiibay ee mujaahidka ahaa
ayaa la ii soo sheegay in la soo jabiyo laga soo adkaaday. markaasay tiri warkaa sax maaha, ku noqo. sax maaha, warkaa waxba kama jiraan bay tiri, ha lagu noqdo. u yaala boqorkii, oo maxaad og tahay adu? anu waxbaan ogahay bay tiri. 7 maalmood kadib haddana boqorkii qasrigii buu soo galay isagoo faraxsan. xaaskii baa ku tiri maxaa helay maxaa dhacay maanta, waad faraxsan tahay? wuxuu yidhi inankeenii gaalada uu ka soo guulaystay, haniimana uu soo wadaa, uu soo galayaa maanta. warkan dambaa sax bay ku tiri. maxaad og tahay adigu? waxay tiri waxbaan ogahay. maxaad og tahay bal ii sheeg. maalintii horena warkii hore waa diiddo, warkii hore runtaa buu noqdo, been buu noqdee. waxay tiri inankaygaa curad ee mujaahidka maalintuu calooshayda galay, luqmad xaaraana afkayga inay gasho waan ka ilaaliyey bay tidhi. markaan dhalayna ee naas nuujinta aan u bilaabayna, markaan naaska nuujinayo waan u weysaysanayay bay tihi ilmahayga. ilmaha tarbiyadiisii halka aan ka soo bilaabay, gaala sidee buu uga soo baxsadaa ma dhici karta bay ku tiri. xaaraantu saamayn bay ku yeelataa dadka bini aadamka ah. lidaalika maanta muslimiinta cadadkoogu uu badan yahay, laakiin tayadeennu way yar tahay maanta. saxaabada rasuulkuna cadadkoogu uu yaraa, laakiin maxaa badnayd?